بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد soo dhawaada saaxiibayaal meel walbood joogtaan waa cashirkeena xisaabta maantana waxaan firinaynaa order of operations sida calaamadaha xisaabta loo kala hormariyo markii meesha ay soo galaan calaamado dhowr isla soo galaan ku dar ka jar ku dhufo u qaybi brackets exponents calaamadaha kala duwan markay isu imaadaan sidii loo kala hormari lahaa ayaan firinaynaa marka calaamadaha sidii loo kala horeeyaan waxaa lagu xifdiyaa laba siyaabood ereygan BMADAS oo Canadian American English Books ah iyo British English Book oo BODMAS ah marka BMADAS xuruuftan waxa laga soo gaabiyaa B waxay u taagan tahay parenthesis gartay E waxay u taagan tahay exponents M oo laga wada exponent waxa laga wadaa powers oo roots ama roots baa laga wadaa marka powerku dabcan rootsku waa nooc kamid ah powerski waa fraction marka uu noqdo jibaarku MD waa multiplication ama division ma kala horeeyaan ayagu left to right waaye from left to right kii soo horeeyad ku bilaabay ku dhufada iyo u qaybida kii soo horeeya AS waa addition oo subtraction waa ku dar ama ka jar ina from left to right waaye same rank BODMAS iyada xuruufteeda wixii laga soo gaabiyey bid waxay u taagan tahay brackets marka bracketsku waxay la macno tahay parenthesis bracketskan wuxuu la macnayaa isugu parenthesiski sababtoo parenthesisku waa nooc kamid ah bracketska owd waxay u taagan tahay orders oo powers and roots ah waa gartay marka ordersku waxay u dhigan tahay exponents isigana dm taasi waa division oo multiplication AS na waa addition oo subtraction waa gartay marka brackets kala duwan ma soo gali kara tables of brackets hadaan fiirino noocyada bracketska waxaa jiri kara bracket noocaana oo la yiraahdo parenthesis ama round bracket waxaa jira sidoo kale kan waa square bracket ama box bracket waxaa jira braces oo curly brackets hadii aan tusaalooyin fiirinana BMADAS waa sidii calaamado kala horeeyeen oo meesha waxaa ugu horeeya parenthesiska ugu horeeya exponent baa jira multiplication division ku xiga addition subtraction ku xiga inta calaamado ma joogto midka ugu xaq lah ama midka ugu soo horeeyad ka bilaabaysa simplify kan marka calaamadahan fiirina ma yaala waxa ugu horeeya parenthesiska waxa bisha ku jira ina marka hore ka shaqeynay parenthesis waa jira waa kana bisha waxa ku dhex jira ka shaqeey kadibna exponent jibaarka uu imaahay marka hadii aan waxa bisha ku jira ka shaqeynay si laga jaray 3 waa 5 inta kale sida ku soo qor hadda stepka marka joogto marka hadda halaa ku qorana waxa ugu sii xaq leh dabcan parenthesiska hadda hal number ku dhex jira operation maaha wax laga shaqeeyaa ma hal number ku dhex jira laakiin exponentiga jibaarka ayaa xaq leh marka 5 isku eegareysana dabcan waa 25 inta kale sida ku soo qoraysa kadibna waxaad sameynaysaa isku dhufashadii oo ahaa from left to right oo kan labadan isku dhufo waa 25 ee ku dhufasho horeyse loo qaybshay 5 hadda halaha noo qoran u qaybida ayaa ku xaq leh labadan isku qaybi marka waa 16 minus 15 oo hadii la sii kala jaro 1 ku noqonaysa tusaale kale hadaan fiirino kan simplify garee calaamadaha halkan ku qoran waxa ugu horeeya oo ku dhufada iyo u qaybida waliba ku dhufada ayaa soo horeysa marka labadan isku dhufo labadana isu qaybi 35 intay naqay intana hal hadii la isu qaybsho inta kale sidoo ku soo qor waa ka kadib hadda ku dar iyo ka jar baan haynaa hadda from left to right what labada soo horeysa isku dar waa 42 labada kala dambe kala jarmay waa 34 hadii si kala jarmaana waa 7 adigu kan try gray waxaad ku bilowdaa waxa square bracket ku dhex jira waliba square bracketska waxyaabaan ku dhex jira waxa ugu sii xaq leh parenthesiska kuwa ku dhex jira kadibna isku dhufashada kadibna kala jar kadib isku dhufashada adigu ka soo shaqeeya jawaabta soo bixaysa bal insha Allah waxay noqonayso try gray aad iyo aad baad u mahadsantihiin